Assalaamu calaykum. Walaal in uun ma ka warwarsan tahay dhibku haysta. Haddaba, haddii aad ila dhammaysato dhageysiga muuqaalkan, waxaan ku rajo weynahay alle idankii in dhibkaasi kaa fududaado oo aad dareento xasillooni qalbiga ah. Muxuu yahay walaal dhibka ku haystaa? Ma qof baa kugu yidhi beenaale ayaa tahay oo hadalkaaga inkiray? Hadday sidaa tahay, ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam tolkii oo dhan baa beeniyey, hadalkiisana diiday. Ma waxa lagugu tuhmay wax aanad samayn? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu tuhmay sixir iyo waali. Ma waxa ku dhibay cid dariskaaga ka mid ah? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam waxa dhibay waddankiisii oo dhan. Ma qof ayaa ku yasay oo ku dulleeyey? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam tolkii ayaa caayay oo madheertii geela dushiisa saaray. Ma cid baa isku dayaysa oo dil kula maagan? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam arrinkan mushrikiinta iyo yuhuudduba way la rabeen. Ma cid baa sharafta ehelkaaga meel kaga dhacday? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam haweenaydiisii Caaisha ayaa sina lagu ganay. Ma mid ka mid a hablahaagii ayaa la soo furay? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam labadiisii hablood ayaa la soo furay isaga awgii. Ma waxa aad weyday mid ka mid a labadaadii waalid? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku koray aabbo iyo hooyo la'aan. Ma waxaad weyday mid ka mid a carruurtaadii? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam carruurtiisa oo dhammi waxay dhinteen intii uu noolaa Faadimo mooye. Ma cunaqabatayn dhaqaale ayaa lagugu sameeyey? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam muddo 3 sano ah ayaa la cunaqabateeyey. Ma waxaad u boholyowday waddankaagii? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam waxaa eryey tolkii oo waddankiisii ayuu ka baxay isaga oo jacayl uu waddankiisa jecel yahay awgii dib u jalleecaya oo ilmaynaya. Ma dhaawac ayaa loo geystay xubin ka mida jidhkaaga? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam dhagaxaan ayaa lala dhacay ilaa dhiiggii madaxa ka dareeray lugaha uu gaadhay. Ma quutal daruurigaagii maalinlaha ahaa ayaad awoodi weyday inaad kasbato? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam bilaa ayaa soo mari jirtay aan gurigiisa dab lagu shidin. Mise waa daymaysan tahay? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhintay isaga oo dircigiisii u rahnan yahay nin yuhuudi ah. Ma waxaad ku daashay cibaadada alle? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam lugaha ayaa dildillaaci jiray taagnida dheer ee salaada awgii. Ma shaqo laguu xambaariyey ayaad ka warwarsan tahay? Ogow rasuulkeennaba sallallahu calayhi wasallam waxaa loo xambaariyey gaadhsiinta diinta adduunka oo idil, jin iyo insiba. Intaa iyo in ka badanba way la kulmeen rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam wuuna ku sabray ilaa uu ka soo baxay shaqadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala u igmaday. Markaa walaal, ma aha inaad warwarto ee alle talada saaro, sabirna la imo, kuna dayo rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam.